ummadii anigu ma ahin nin siyaasiya idinkula hadli maayo luqada siyaasiyiinta qarnigan warka aan idiin soo gudbinayana ma diblomaasiyeynayo oo qaab diblomaasiya ku hadli maayo anigu waxaan isu dhigayaa nin culimaa inaan ahay ummadduna ay marag iyo markhaati iiga tahay hawsha aan ku aadanahay iyo xilkeeda wixii i gaadhay iyo falkii la igula kacay aniga oo ceerigaaba jooga ayaan rabaa inaan maanta idinla wadaago siday wax iigu dhaceen runtii qaadanwaa bay igu noqotay filanwaana way igu noqotay aniga oo ceerigaaba u jooga hawl nabadayna muddo 28 maalmoodna ay igu qaadatay hawsha qoys oday keliya ka soo jeeda oo shaydaanku dhexdooda ka adeegay baa dareenkaygu i siiyey inaan hawsha aan galo anigoo ku qanacsan kalsoonida ay igu qabaan labada daraf ee reerka ka soo jeeda xaqiiqatan labada darafba sidii aan filayey iyo si ka fiican bay ii qaabileen aniga iyo sheekh maxamed cali bixiba halkii aan ka filayey bay i dhigeen hawshana muddo 28 cisho ah ayaan ku jiray aakhirkii markay hawshii ii soo dhowaatay oo aniga sheekhii aan soo gebagabayn rabno ayaa dhambaal la igu yidhi wuxuu ka yimi xaruntii Hargeysa ayaa wakhti habeennimo salaadii subax jimco ah ayaa nin ii sheegtay inuu yahay mas'uulkii sirdoonka ceerigaabo ayaa hodheelkii iigu yimi wuxuu iigu yidhi odayow ilaa shalay magaalada waad ka maqnayd laguma arag ilaa xalay telefoonkaaga waa densatay marka waxaa lagaa rabaa inaad si dhaqsaa u gasho magaaladii Hargeysa waxaan ku yidhi adeerow aasha hadal anigu Hargeysa ama ceerigaabo shalay oo khamiis ah labadii gelinba dadkii aan dhexdhexaadinayey ayaan la fadhinay iyagaana marag iyo markhaati ka ah gelikii hore iyo gelikii dambaba maanta oo jimco ah oo salaadii subaxaan joogana maanta oo jimcaha gelika dambana hawshii aan u joognay 28 cisho hadday keemiga keentay oo ay noo bislaatay inaan hawshii gudagallo baan rabnaa labadii darafna waan ballaminay marka min fadlak waxaan rabaa hawshaa gebagabaha ku dhow inaad fursad i siiso oo aan hawshaa soo gunaanadno labada daraf ee aabbaha keliya wada dhalayna aan gacanta isu saaro dabadeedna annaguna halkiina laga rabo aan aadno wuxuu yidhi haddii aad ka bixi weydo markaad quraacato wixii dhaca adigaa mas-uulka waxaan is idhi wardee ruushkaba 24 saaciyo saacado ka badan baa lagaga saari jiray dalalka ilaa nin shisheeye maanihiye hantidaydii baa taalla ummaddaydii baan la joogaa waa maxay saacad kaga bax dalka ceerigaabo waa magaaladaydii saacad garatay maaha marka adu ninkaasi wuxuu ku adkaystay markaad quraacato haddaad ka bixi weydo adigaa mas-uulka ah wixii dhaca waayahay baan ku idhi sidii baan markaa anugu ku soo baxay waxaan ku idhi gebagabadii markaan kala tegaynay war anigu waan tegayaa dadkana ilaahay bay leeyihiin aan hawshooda ku jiray wixii aan ilaahay dartii u qabanayeyna insha allahu ilaahay iga lumin maaye markaan Hargeysa tago yaan u tagaa cidda i doonaysa ee aan ku hagaaga ii sheeg wuxuu igu yidhi odayow waxaad tegaysaa meeshii meheradaada caawayaan lagu waayin markaad saa isu taagto ciddii ku rabtay baa ku iman doonta 9kii aroornimaan ka soo dhaqaaqay ceerigaabo halkan waxaan soo galay 8dii fiidnimo 12 saacadood keliya baan ceerigaabo iyo Hargeysa soo kala socday markii aan gurigaygii iyo meheradaydii imi cid taagan oo i qaabisha ama wax ii sheegata maan arkin markii aan magaalada soo galay markiiba waxaan la itisaaloon la xidhiidhay ku-xigeenkii sirdoonka Faysal Guhaad Cabdigahayr baan la xidhiidhnay waxaa lagu yidhi sheekhii uu soo galay maxaa laga rabaa Faysal Guhaad Cabdigahayr wuxuu yidhi anu sheekha iyo arrimihiisa war iyo wacaaltoona ma hayo wuu isbari yeelay waxaanu la hadalnay
maxaanku idhaahdaa mas-uulkii ugu sarreeyey sirdoonka marka waxaanu ku nidhi waxaa la hadlayay markaa nin korneyl oo aan walaalanahay cabdicasiis la yidhaahdo wuxuu yidhi sheekhii wuu soo galay maxaa ka rabteen wuxuu yidhi saaxiibkaasi wax allaaliya waxaan sheekhaa aan ka rabo ma jiro mana u yeedhannin wax dalaboo aniga xaggayga uga tegeyna ma jiro wax eedoo aan u haynaana ma jirto intaas markayna kala gaadhay ayaa haddana 24 saac ka bacdi ayaa sirdoonka ninkii u sarreeyey igu yidhi wax dembiya uma haysanno baa waxaa haddana la iga keenay war odhanaya ninkaa odayga ahi wuxuu tegey badhan saasaa markaa warkaasaa la iga soo celiyey warkaa markaa badhan ee aniga eedda la iga dhigayo waan la yaabay badhani waa dalkaygii waa dalkiinnii waa dalkeennii waxaana dee jooga ummaddaydii baa joogta aan sheekha u ahaa maalintii maxaanku idhaahdaa waxaan tegey jimce sabti ilaa khamiisna shaqaan ka hayey ilaa iyo 700 oo qof oo xanuunsanaya oo cabanaya baan cabashadoodii la wadaagay midba waxaan ku qanciyaba waan iskaga soo baxay maalinnimadii jimcihii waxaan ku soo noqday Ceerigaabo hawshaydii markaa nabadayntii baan halkii ka bilaabay marka waxaa la iiga eed dhigay sidaan markaa arkayo badhan buu tegey arrintaa badhan buu tegey waxde maxaanku idhaahdaa dembiga anigu uma arkayo xeer inooga yaalay aan badhan la teginna anigu ma hayo waxaan sawiranayaa uun maalintii haddii alla yidhaahdo cabdiqays weli wuu nool yahay allaha ilaaliye markii lagu haystay jabuuti baa tagtay baa lagu haystay marka waxaad mooddaa un taariikhdu inay isa soo celinayso wuu garnaqsaday markaa cabdiqays inaanay dembi ahayn jabuuti la tagaana suugaan buu ka tiriyey waxaa ka mid ahaa ereyadii uu ka tiriyey maalintaa ee qalbigiisa dareenkiisa uu soo gufaacday ma xayirin wanaagoo kama talin xumaan abid xabashina umaan gelin xeebtaa jabuutee soomaali laga xaday haddii aan xagaa tegey maan jabinnin xeerkiiya maxaa laygu soo xidhay agoon xoola kama dhicin xadhka goysna maan noqonin ee xanarra kama gelin ee xeebtaa jabuutee soomaali laga xaday haddii aan xagaa tegey maan jabinnin xeerka ee maxaa laygu soo xidhay haddii aan badhan tegey oo aan ummaddaydii u tegey oo aqoontii aan lahaa aan ku caawiyey xeer inoo yaallay oo odhanaya badhan lama tegi karo muu jirine waxa eedda la iiga dhigayo waxaan ka codsanayaa ciddii ii yeedhay iyo ciddii mas-uuliyaddeediiyo magaceeda haddii alla la igu isticmaalay in ay ummadda iigu sheegto ama ay waxay dembi ah ummadda in la ii bahalgeliyo ma rabo ummaddu waxaan ahay way garanaysaa wax allaaliya waxaan dembi ka galayna ma jiro qarankan marka inaan taargad noqdo anu ma rabo ummaddana in si qaldan wax loogu sheego ma rabo